kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel walba oo ay joogtaan halkani waa Somali Freedom kusoo dhawaada muuqaal cusub anigu waxaan ahay Ciidruus Iimaan mowduuca maanta aan idinku talagalnay aad daawan doontaan haddii eeba uu raali ka noqdo waxa uu noqon doonaa 7 hab dhaqan oo dhaawac ku noqon kara mustaqbalka qofka inkastoo aynu wada ognahay jiritaanka dunida haddana waxaa laga maarmaan ah halbeegyada nolosha iyo hab dhaqanka dabcan bulshada dhexdeeda inay ku jiraan waxyaabo gaar ah oo muujinaya dadnimada iyo dunta qofka sidoo kalena meesha ka saaraya dabcan waxyaabaha qofnimada hoos u dhigaya ama dhaawacaya dadka kale ee aad bahwadaagta tihiin sida haddii ay xirfad shaqo iyo waxbarasho iyo nololba ay idin kulan siisay haddii aad doonayso inaad dareento farxad waxaa jira 7 hab dhaqan oo aan wanaagsaneyn oo laga yaabo inay qaataan tamartaada ugu badan adiga oo aan wacaal u hayn sida lagu xusay warbixin ka soo baxday dabcan Forbes kaliya farxad kama helaysid marka aad joojiso dhaqamadan balse waxaad helaysaa kalsooni badan adiga oo si togan uga falcelinaya deegaankaaga midda ugu horeysa waa cabashada badan waxaa laga yaabaa inaad raaxo ku dareemayso marka aad sheegto cabashadaada hase ahaatee taasi ma ahan xalka waxa uu xalka ku jiraa in aad eegto dhibaatada halka ay ka timi iyo sida looga gudbi karo tan labaad waxay noqonaysaa isku dirka dadka qaar ayaa leh hab dhaqankan oo ay la tagaan goobaha shaqada waxaa qatar laga dhaxli karo natiijooyin aan wanaagsaneyn waxa ay saameyn kartaa mustaqbalka qofka haddii uu joogteeyo dhaqanka guracan ee isaga foolxumo iyo faduul u horseedaya qodobka saddexaad isaguna waxa uu noqonayaa qoomamada waxaa lagu tirin karaa qoomamada xaalad maskaxeed oo aan wanaagsaneyn iyada oo ay la xiriirto qaladaadkii hore ee qofka uu u galay qoomamada ayaa qofka ka mashquulin karta waxa maanta taagan ee u furan in uu sameeyo taasoo dad badani ay ku kala duwan yihiin sida ay tahay in loo fuliyo iyo habka loo wajahayo intaba qodobka afaraad habfekerka taban tani waa mid kaloo xiiso badan iyo mudnaan kaloo nolosha u leh marka la fiiriyo xaqiiqda jiritaan ee ku wareegsan dabcan sida lagu xusay warbixintan habfekerka taban ma habboona xaalad kasta inkastoo dadka qaar aaminsan yihiin in mararka qaar loo baahan yahay laakiin tani micnaheedu ma ahan inuu noqdo joogto ama mid la caadiyeeyo samaynteeda si lamid ah qodobka shanaad waxa uu noqonayaa naftaada oo aad la barbar dhigto qof kale taasi dad badan oo aad uga hadla ayaa jira qaybtoodna yaqiinsan inay khatar ku tahay qofka jiritaankiisa iyo sidoo kale dabcan karaamadiisa qofnimo haddii aad leedahay habdhaqankan waxaa qasaba in aad joojiso waliba waqtiga ugu dhow dunida maanta qof kasta ayaa la nool caqabadihiisa gaarka ah waxaa mashquul kugu filan in aad yoolkaaga ceyrsato taas wax ka weyn way naftaada diiradda saari lahayd ma jirto bal inta aad noole kale ama qof kale oo dunida kula jooga aad ku mashquuli lahayd tayadiisa dadnimadiisa iyo duntiisa waxaa ka habboonaa lahayd oo adiguna wax kuu noqon lahaa baltaada inaad eegto dhugato si aad u ogaato inaad dhaba saxan ku socoto si aadan uga wareerin jihada guusha nolosha qodobka lixaad qancinta dadka tacaamulka wanaagsan iyo qancinta saaxiibadaada waa muhiim laakiin tani kama dhigna in aad raali geliso qof kasta sida dadku ay rumaysan yihiin qancinta dadka waa yool aan la gaari karin sida badi dadku ay yaqiinsan yihiin inaad dadka raali geliso waa wax adag balse isku dayo badan ayaa jira adna aad ku qancin karto dadka kalena ay ku qancin karaan laakiin adiga oo taada ka tagaya dad kale ma raalin kari kartid waana sifayaasha ugu adag oo dad aan u dhalan doonayaan inay sameeyaan ama ay caado joogtaa ka dhigtaan qodobka ugu dambeeya ee 7aad waa eedaynta inaad eedayso naftaada ama dadka kale labaduba ma habboona ka fogow dhaqankan si gaar ah marka aad joogto goobtaada shaqada eedaynta waa caado xun oo nolosha disha rajada qofkana gudcur ah ku rida taasoo dad badan ay joogto ka dhigteen iyaga oo dad kale wax aysan ahayn ku nisbaynaya ama dusha u saaraya taa beddelkeedana dhaqan iyo sifo dun iyo dadnimo aysan lahayn iyaga sheegta ama dabcan
isu qeexa marka ay qof ahaan isqeexayaan. muuqaalkii gaarka ahaa ee aanu ku eegeynay daawadayaal dabcan 7 habdhaqan oo dhaawac ku noqon kara mustaqbalka qofka ayaa halka kan ku soo koobaynaa. Fuad Cabdirasaaq Gurey ayaan uga mahad celinayaa duubista muuqaalka quruxda badan, aniguna soo jeedinta ayaan idin qaabilsanaa. idinkana waan idinkaga mahad celinaynaa daawashadeena. waad ku mahadsantihiin la sii wadaaga saaxiibada kale. nabadgelyo.